بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنتي وناكسن ولا ليال ميل كستواد كتشوكتان دافها دونك الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله وبكماله وبعدم سلطانه ولا ليال إله سبحانه وتعالى أيام مهد له الحمد لله إن شاء الله تعالى برنامج كان وحوككو بي دور قضب إلى أفرقض إن شاء الله تعالى qodobka ugu horeeya waxa weeyaan dhiirigelinta dikriyadii aynu shalay soo dhignay alxamdulillaah rabbil caalamiin in lagu dhiirado alxamdulillaah walaaluhuna isbedel fiican bidurba ku dareemeen hordhaciiba waa dikriye aad u kooban haddana waxaa la dareemayaa farxad iyo furfurnaan iyo in xaaladdu ka duwan tahay sidii hore sababtuna waxa weeyaan waxaynu aad u badinaynaa waa saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam marka dikriyada kooban ee akhriyna laga reebo oo aan waqti badan qaadanin dikriyadani waxa ay nuurinayaan ay kor u qaadayaan haaladeena marka insha Allah sida halkan aan soo saari doono sawirka eega dhinaca midig waxa xiga haaladii qofka waqtigaad murugaysan tahay aad xaalad xun ku jirto ama dadka negative-ka ah ee aan ku fiicnin aad la joogto xayndaabkaagu sidoo noqonayo waa marka qofku marka uu garbaha hoos u dhigayo wajiga hoos u dhigayo murugaysan yahay qalbi jabsan yahay ee haaladu sida markay nuurayso iftiinto qofku farxad buu dareemayaa iyo fudayd marka insha Allah ta'ala dikriyadani waxay nuurinayaan haalada xoog u quweynayaan insha Allah ta'ala aad loogu dadaalo marka qodobka koowaad waa dhiirigelintaasi iyo sida durba walaaluhu u dareemeen alxamdulillaah rabbil caalamiin faa'idadaasi Allahumma salli ala Muhammad qodobka labaad walaalayaal wuxuu yahay Allahumma salli ala Muhammad waxa jirta fariin nabiga kaleey salaatu wasalaam uu soo gudbiyay walaalihii loo bushaareeyay waxa jira markaa walaalo isdareemay laakiin xishooday insha Allah ta'ala fariin gaar ah ayaa loo hayaa marka walaalahaasi waxaan laga codsanayaa dhammaan si guud iyo si gaaraba walaalihii loo bushaareeyay ee isfahmay intii la soo xidhay la soo xidhay intii kale waxaad soo qori doontaan shan insha Allah ta'ala ka bacdina aan idin soo jawaabi doona waxaan ku jiraa fasaxayga oo labadan maalmood fasax baan ahay hadii walaalaha qaarkood ay hawadayga waayaan ama aan jawaabo hadii u bixin waayo hawla kale aan qabtaa insha Allah labadan maalmood marka insha Allah ta'ala walaalahaasi hay soo qoraan shan qodobka saddexaad waxa weeyaan waa jimce caabo markan digriyada qaybta hore baad akhridaan aynu aad u badno saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam aad iyo aadna ha loo ducaysto insha Allah ta'ala biidnillahi ta'ala qodobka lixaadna waxa weeyaan marka ducaysanaysan walaalayaal qodobka afraad ee ujeeda waxa weeyaan walaaluhu markay ducaysanayaan insha Allah ta'ala ducada naftooda ay ku koobin dhammaan walaalaha dikriga iyo walaalaha muslimiinta iyo ehelkooga iyo qaraabadooda intaba ha u duceeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala been walaalayaal khayr wadiisanayna waa xilliga aynu salaam jirin nabiga kaleey salaatu wasalaam sidan soo socota as-salaatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasuulullah as-salaatu wassalamu alayka ya sayyidi ya habibullah الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله marka walaalayaal insha Allah ta'ala sida nabiga loo salaamo 5 jeer 10 jeer iyo ka badan intii aynu awoodayno dikriyada kooban markaan akhrisano ka bacdina saliga nabiga aynu aad u badino sallallahu alayhi wa sallam khayrna insha Allah ta'ala aynu fulano alxamdulillah ilaahi baa arimahan inoo furay arintaas aad iyo aad lagu sii socdo insha Allah ta'ala oo digriyada hal xoojiyo khayrkana hal sii gaarsiyo walaalaha muslimiinta ay kale qofka khayrka cid gaarsiiya cidaas wuxuu ku leeyahay maxay ajarkiibu yaani wax ku yeelanaya insha Allah marka walaalayaal halkaas ku soo koobi doona insha Allah ta'ala taniyantana barnaamijyada soo socda ku kulmayna waxaan kaga tagayaa astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wadai'ahu fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد